muwaadin Norweji ah ayaa lagu soo waramayaa in lagu xiray xabsina lagu dhigay wadanka Ruushka ee dariska la ah Norway. Muwaadinka Norwejiga ah ayaa lagu soo waramayaa in uu ku noolaa Stavanger oo ah dhanka xadka ay wadaagaan wadankaasi Ruushka, waxaana lagu soo waramayaa in lagu xiray magaalada Murmansk ee wadankaasi Ruushka oo 100 kiiloomitir u jirta xadka ay wadaagaan wadanka Norway. Waxa ayna sheegaysaa wasaaradda arrimaha dibadda wadanka Norway in ay bilaabeen inay aruuriyaan macluumaad ku saabsan muwaadinkan ku xiran Ruushka, waxayna sheegeen in lagu xukumay xabsi kumeel gaar ah oo baaritaanka kiiskiisa inta uu socdo ah, ka oo noqonaya 2 bilood kuna eg ilaa 25 bisha Juulaay ee lagu soo foolay. Waxa ayna wasaaraddu sheegaysaa in muwaadinkan Norwejiga lagu soo oogay dacwad ah in uu haystay hub iyo rasaas aanan loo ogolayn ama sharci darro ah. Qareen lagu magacaabo Christian Eden ayaa warbaahinta u xaqiijiyay xirnaanshaha muwaadinkan iyo xukunkan 2 bilood oo laga baarayo kiiskiisa isagoo ku jira xabsi kumeel gaar ah. Wasaaradda arrimaha dibadda wadanka Norway ayaa xaqiijisay xirnaanshaha muwaadinkan ku xiran yahay wadanka Ruushka, waxayna sheegeen inay ka shaqeynayaan sidii qaab diblomaasiyadeed ula xiriiri lahaayeen una caawin lahaayeen muwaadinkan uga xiran wadankaasi Ruushka. Waxa uuna sheegay la taliyaha agaasinka wasaaradda arrimaha dibadda wadanka Norway Marikan Harbitsi in ay arrintan hadda ku daba jiraan xirnaanshaha muwaadinka. Wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay in aysan saameyn badan iyo galaangal badan ku lahayn gudaha Ruushka oo caawinaad xad dhaaf ah aysan caawin karin muwaadiniintooda haddii lagu xiro wadankaasi Ruushka. Waxayna sheegtay wasaaradda iyo safaaradduba in ay dadaal xoogan ka wadaan arrinta ku saabsan muwaadinkan iyo sidii ay u caawin lahaayeen. Inkastoo agaasimaha wasaaradda arrimaha dibadda Harbitsi uu sheegay in ay xadidan tahay caawinta ay sameyn karto safaaradda Norway ee ku leedahay magaalada Moscow ee caasimadda wadankaasi Ruushka, waxa uuna hadda ku xiran yahay oo xabsigeeda uu ku jira magaalada Murmansk ee wadankaasi Ruushka oo 100 kiiloomitir u jirta xuduudda wadanka Norway ee wadaagaan Ruushka. La taliyaha gaarka ah ee hay'adda BST ee dhanka sirdoonka iyo amniga dalka Norway Martin Benesen ayaa isagu wax laga weydiiyay arrintan, ha yeeshee waxa uu sheegay in uu ka gaabsanayo kiiskan oo uusan doonayn in uu ka hadlo. Calaaqaadka ka dhexeeya Norway iyo Ruushka ayaan aad u wanaagsaneyn marka loo eego maadaama ay Norway taageero xoogan u muujinayso ama ay siisaba wadanka Ukraine oo uu dagaal ba'an kala dhexeeyo wadanka Ruushka. Halka warka kiisa ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.